بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شيخ آدم خير الله سيا maanta badan uu sheegay ma filaya inaanu cuntamo waxaan rajaynayaa un insha allahu tacaala ilaahay ha ka abaalmariyo dadkii qabanqaabiye kulankan ee suurtogeliyey bacd allahi subxaanahu wa tacaala habeenada dhowrka aan idinla joogo wixii aan awoodo inaan soo bandhigo mowduucan koowaad aan ka hadlaya wuxuu ku saabsan yahay subulu inhaa'i alkhilaaf aw subulu inhaa'i alkhusuuma muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo is-afgaranwaaga ismaandhaafka bini aadamka dhex mara xal ma leeyihi see loo xallilaa asalka bini aadamku ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabku u abuuray insaanku waxay dhahdaan bitabcihi buu ijtimaaciyey kama maarmo inuu bulsho iyo dad ka mid noqdo uu la noolaado insaanku ama qofka bini aadamka ay sidiisabana lama mid aha malaa'igta malaa'igtu shar ma leh khayrun bay sameeyaan insaanka laakiin nasaacadka alla uu ku abuuray khayrka iyo sharkaba wuu weecan karaa dabaa'icdiisaa kala gedisan aqoontiisaa kala gedisan masaalixdiisa iyo danuhu leeyahy baa kala gedisan waxyaabo badan baa waxay kalifaan inuu murmo ama isqabto ama iska hor yimaado hadduu afraad yahay hadduu jamaacaad iyo kooxa yahay hadduu dowlado yahay waxaa dhacda bini aadamka in marar badan muran u dhex maro iyadoo ay leeyihiin aslu linsaan alukhuwa watacaayush baa asal ka ah laakiin dabcigiisa iyo masaalixdu ilaashanayo iyo makaasibta maadiga ama macnawiga ee uu raadcadeeda ku jiro baa waxay keentaa in bini aadamku in badan murmo ama iska hor yimaado ama isqabto waxay isweydiinta leh markaas sidee loo xallilaa inta badan bini aadamku wuxuu ku kala gedisan yahay mushkilaadka sida loo xallilo dadyowga maalan reer galbeedka aynu u naqaano tajaarib mariira ama adag markay soo mareen waxay bartay qaab loola dhaqmo reconciliation methods iyagu tajaaribtoodii ka dhaxleen dadka muslimiinta ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka kafaalo qaaday inay tajaarib bashariyo badan sameeyaan waxaa loo soo dejiyey nidaam awood u leh inuu xallilo waxa mashaakil soo dhex mara waxaan isku dayi doonaa markaa bal caawa iyo habeenada soo socda qaar ka midaba inaan soo bandhigo fi shariica alislaamiya qaabkee loo xallilaa mushkilaadka innagu haddaynu soomaali nahay bini aadamka waynu la wadaagnaa bini aadamnimada laakiin cusuurtan dambe waxaa caan noqotay in ninka soomaaliga mushkiladiisa xalliliba kari waayo ilaa xad luqaadkii caalamka aynu terminology eraya cusub kusoo biirinay af carabiga waa aragtay iminka akhbaarta ama jaraa'idka ama caynkano sawmalat alqadya leh yani waa eray manxuuta min kalimati somaal laga naxdiyo laga dhilay laga qoray laga sameeyey waxay tilmaamaysaa inuu dabci gariib ku yahay basharka inuu yahay kanaynu keennay oo ah mushkiladaan xal lahayn muranaan gebagabo lahayn meeluu ku dhammaada aanay jirin insaanku inuu murmaa waa min طabcih ilaahay baa qur-aan ku tilmaamaya xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum waa saxaabadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ama ilaahay baa inoo tilmaamaya walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum laakiin haddana cagsigeeda waxaa laynoo sheegay nisaaca bini aadamka ka dhex dhaca inuu xallayay fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul
waxaan isku dayay inaan soo bandhigaa marka waxay tahay khusuumada iyo muranka bini aadamka dhex mara shareecadu 3 qaybood bay ugu tala gashay in la maro 3 xuluula 3 xal shareecadu soo bandhigtay mid waxa la yiraahdaa al-afw aw al-musamaha midna waxa lagu tilmaamaa al-islah aw al-musalaha aw al-sulh in la iscafiyo oo la kala roonaado Soomaalida mahmaheedii waxa kamid ah haddaan la kala roonaan roob ma daa bay yiraahdaan yani mushkiladu ma ka sii dhalata in la iscafiyo waa طريق in islaax iyo sulxi iyo heshiis la galo oo macnaheedu yahay in la gorgortamo musaawama ay dhacdo oo tanaasulaad dadku ay sameeyaan oo meel dhaxal la isugu yimaado iyadoo maslaxada caamka la eeganayo oo markaad in ka tagto muqaabilkeed maslaxa kale weyn baad helaysaa ka saddexaadna waa almuxaakama aw altaxaakum walqadaa in sifa sharciya loo dootamo oo loo murmo oo meel loo noqdiyo marjac uu jiro lagu kala baxo 3 qadiyadood aan sheegayo waxaan rabaa inaan faahfaahiyo oo balaan isku dayo inaan habeenba mid soo bandhigo waxaan soo bandhigayaa qadiyada koowaad oo masalada al-afw erayga al-afw wal-musamaha aw at-tasamuh was-safh iyo waxa la macnaa دكتور ونيس الطاهر وحلي مكان ايغو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وديكشنري لقبار رياضة قرآن كقصة وريف عربية مكان ايغو لي وحن كو اركي افرتن هي افر ايضود ان كبدن او كور رميسا عن العفو والصفح إلهي سبحانه وتعالى هو أودي آية واحدة معناها إسعافية دين لينوغو شيغو لكن marka la yiraahdo 44 aayadood ba ku soo arooray macnaheedu waxa weeyaan qadiyadatan siday muhiimka u tahay iyo sida loo rabo qofka bini aadamka ee mu'minka ama muslimka inay si dhab ah uga dhaadhacdo inay noqoto wax kamida min khuluqihi wa min tab'ihi wa sajiyatihi wax dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa kamida oo noloshiisa oo dhan uu adeegsado هذه الآيات أفرتريدا كبضا وحكم مدان سكدية إن عاوت الماما عموما بعض الآيات الله سبحانه وتعالى وحليه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله في سورة الشورى سيئة أما حمال وقصة ميام مقابل كذا إلا جنات سمي سابات حق ليضي إلهي سبحانه وتعالى لك وحليه فمن عفا وأصلح عدة عفدة إصلاح الدورة فأجره على الله با إلهي أجر كيسا كائسا رب بكركي هذا وحلا ترين كرو وكبدينه إلهي وحليه سبحانه وتعالى من هذه الآيات في سورة النساء وحكم ده إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا هذا خير كموجستان با إلهي إذا ما قرصتان قفك بني آدم كاهي هدو قدوي أما أعماش خير كوسلي ولا قاقضينا يا مفروض العيان كايتاي وحفي عن إن لموتشيو أي فافته أي موقته وحيابا قاركودنا وحكو في عن قفكو إنو قرصده أي سقي ربكي ونحيسه صلاة هالنقطة صدقات هالنقطة وناك بدن أو ربك سبحانه وتعالى أقاريله وأيو أعماش أنت بدن استسقى إيا الرياقة إيا السمعة إيا وحلمي دي ويبريان قفو إنو قرصدا وحي كوكلفتا أما وحي كساعدا إنو عملكو خالص ونقن كرو سقي ربك أي كنحيس إلهي مركا وحولي خير كهدا قرصتان يا هدا موجسان با لبدا دندكا مرتان با أو تعفو عن سوء وحينتها مقابلة أو تعفو عن سوء أما حما أردافتان خير كي لسميني وحلا دين عدقي وإسنا كمدا وحيابها ونكسنا لسميني أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا رب سبحانه وتعالى وحت المامية علاضة
bini aadamka dhex marta waxa lagu damiye ee ugu waaweyn inuu ka mid yahay ee colaadda u bedeli kara saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo tolnimo iyo kalgacal iyo soo dhoweyn u bedeli kara inuu cafigu ka mid yahay ولذلك بقى إلهي وحليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مص النبى إلهي سبحانه وتعالى توناكسا يطحوني توناكسا كالهرتك عندي كحميسي أدقو عفي وناك ولبا وصمي بالله المامية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كي شليته أدقى يسقى إيدين لحيسي علاض قفك نبتكو جيستي منطقة عادية بشري جاي وحاو شيء إنه فيليه إن أدنى أرجدته أما وحقاصته وصيد بني آدم كاللغو يقان لكن تا عكس كده هداد وناك ولبا السمايسه إلهي سبحانه وتعالى وحلي عداوة دين دحيسي وحيسو بدليس كأنه ولي حميم كأنه قريب حميمة صديق كودو صاحب دوب نقون يا رب الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون آيات كا يقوى الله متكا في سورة الشورى إلهي مركم مؤمن كصفين وصفاتك كشة وحاكم دا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها آيات كتب بها إليه وحليه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نبينا عليه الصلاة والسلام سنة الصحيحة وحكى صاروري في صحيح مسلم إمام الترمذي باي صاريان حديث كنا بيقول دارنا أشياء دورة كنا أرطي محل شاهد كنا نتجيا وحكى مدانا بيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة نبي كل رأي عليه الصلاة والسلام قف مؤمنة وأدون إلهية عفو وعد عفية ومكر بسمه يعني عزي يا شرفتي هذا بين قفك وحعفي كره أرن فضض معها بني آدم كوكل علسي ومن طبع الإنسان خلقة بني آدم كسيدة إلهي وأبوري وحكم ده إنه جعل يهي الانتقام والانتصار وشيء محبوب بني آدم كوا وفرح جالس قفك عدي شلي نبتي مركو كأرجوته وحد ريما برارة هي فرحة وقفك بني آدم كدريما إذا من طبع الإنسان وحكم ده الانتصار والانتقام لنفس أي كم ده هدو قفك مركا أبوركا سي أبوركي سكم ده هدو ككر مره وكحوق النقضة أو وحافي كرو عدة وحافي دابيد هذا أصلا هم الأقوياء وهدتك نفسيا حوقة ككر مري حظوظ النفس نفت يرى ابن آدم كوش عليه ككر مري ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى وحكت المامية من عزم الأمور إن يكمتها وحنوبها من مركة ابن آدم كو نظريات كثيرة أشياء معنوية يلا شرحه سفي عنه قمر دعضه هدي أنا تصاليال رسمية هلنا نلاشة كمدة وحن سكود ديليا آيات كبدنا القرآن كقصة أرورية ما حديث بدنا قصة أرورية مسألة كور رميسة إن أنها كوتشوتشيه لكن نصوص التمثيل كشيء يسينا بديه وهرين وحن لأنهي العفو مجالات الحياة وربو قلها إنسان كمركا عفو قال لغا ورمي أنت بدن ضدك مسكحة دو حكو سودك قف عايي أمام ماغي أما إنتان أو عفيي لكن أرأيك كان في الشريعة الإسلامية وكوكو بلادي قضايا سياسية بو قلها السياسة الخارجية بو قلها السياسة الداخلية بو قلها قضايا الحرب بوقلا قضايا الشخصية بوقلا قضايا الأسرة بوقلا نرشع بين لاني ووحكم منها سيد أوجد القائد الناجح قائد كمرموق كهجامية وصفات كأوه الرأي اللي باهية لجهله بني آدم كقفك شعار كي مهجامين كريان دول قادني وحبع فيه كريم
walidalik baa ambiyadu sifaadkay ku sifoobaan waxa u badan oo ka mid ah cafwiga. ilaahay nabigii muxamed calayhi salaatu wasalaam oo loo soo diray inuu noqdo qaa'id albashariya jamca insaaniyada dhammaanteed oo dhan bini aadam inuu hogaamiyo, inuu noqdo mithaalka ugu sarreeya ee bini aadam uu kaga daydo dhaqan iyo akhlaaq iyo caqiido. oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay tilmaamayana yowma alqiyaama inuu odhan doono sayidu waladu aadam inuu noqon doono saaxibu liwaa'i alxamdi washafaacati alcudma saaxibu alxawd. ilaahay isagoo nabiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam caynkaasi iyo ummadda tan loogu talagalay inuu mithaal u noqdo iyo hogaamiye ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin. muxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilahay wuxuu leeyahy khudi alcafwa, cafiga qaada baa ilahay yihi ku dhaqan, samahana dadka far. laakiin qofku hadduu qaa'id noqdo ama ummad hogaamiyo cid xagxagata lama waayo ama maagta ama wax ka sheegta. ilahay wuxuu leeyahy wa acrid can iljaahiliin, wax magaratadana dhaaf. adiga dariiqaagu ha noqdo inaad cafiga qaadatid, jidkaagu ha ahaado sama-un inaad ka talisid oo dadka wanaag u sheegtid. muqaabilka jacjacoorka kaa hor yimaada ama maangaabka ama wax magaratada wax sheegta kuwaana dhaqankaad kula dhaqmaysa ha ahaadaba ilahay leeyahy wa acrid can iljaahiliin. safiiha iskaga tag, dhaaf, ka jeeso. walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinayo axad saxaaba baa wuxuu leeyahy kaanii anduru, nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaanii anduru ila nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam yaxkii nabiya min alambiyaa. saxaabi baa nebiga ka sheekaynaya, nebigiina wuxuu kasii sheekaynayaa nebiyan min alambiyaa. shuraxda qaar sida yidhaahdaan, shuraxda qaarkoodna waxay leeyihiin isagunbaabuu ahaa qadiyaduye, laakiin wuxuu usoo bandhigay ka xikaaya. miday doontaba sharaxu ha noqdee kaanii anduru ila nabiyi yaxkii nabiya min alambiyaai aadaahu qowmuh wahuwa yamsaxu iddama can wajhi wayaquul allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuun. waxaan arkayaa buu yidhi nebi nebiyada ka mid ah ama moxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii ka horeysay oo tolkii dhibay. nebi waxaad garan kartaa wuxuu sheegay inay samuun ahayd, abaalmarkiisuna inaanu ahayn in la dhibo. isagoo wanaag sheegaya waxaa loogu abaalguday in la dhibo, dabeetana dhibtu ay xad gaadho in jasad ahaan dhibaato la soo gaadhsiiyo uu dhiigga wejigiisa ka masaxayo. qofka bini aadamkii marka la dhibo ee dhiig madaxiisa laga keeno inta badan wuu cadhoodaa. cadhaduna waa volkaanaha maskaxda dadaday ka mid tahay ee bini aadamku markuu cadhoodo wax badan aan laga filayn baa ka soo baxa. laakiin nebiga kan waxaa lagu sifaynayaa inuu yahay isagoo dhiiggii wejiga ka masaxayo haddana wuxuu leeyahay allahuma kfir liqowmi fainahum laa yaclamuun. ilaahayu tolkay isaga dhaaf, waayo waa waxba garato, jahli baa haya iyo garaad la-aan. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markuu sifaynayo mu'miniinta dhabta ee qur-aanku ka warramay oo ah sifaatu ahli ljanna baa qur-aanku ka warramaya. sifaatkaasi jannada carduha asamaawaat waalardu uciddat lilmuttaqiin markii la yidhi ayaa ilaahay sifaat siiyey dadkan jannada gelaya. waxaan isku dayayaa maxalu shaahidka qura inaan sharxo. dadkaa sifaadka lagu sifaynaya waxaa ka mid ah ahlu jannaha ee muuminiinta ah min tabcihim wa sajiyatihim inay ka mid tahay, dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo noloshooda caadiga inay ka mid tahay. waalcaafiina can innaas baa ilaah yidhi. waalcaafiina waa kuwa cafiya ayo u fiirsa aayadda maaha can ilmu'miniina almukhlisiina almuttaqiin maaha. ilahay wuxuu leeyay waalcaafiina can innaas والناس فيهم الكافر والمنافق والجاهل والمؤمن وغيره. إلهي وحلي والعافين عن الناس وقوة ضدك عافية من طبع المؤمن هي أخلاقيات كسوى حكم ذا إن أنا هين قف أرجود الشر كوب بدنتي طبع كسوى حكم ذا قف عفو كوب بدي هيني.
في سورة الشورى marka ilaahay mu'miniinta sifeynayna wuxuu ku tilmaamaya وإذا ما غضبوا هم يغفرون hadday cadhoodaan baa ilaahay yidhi subxaanaه وataعaalى waa kuwo dadka cafiya sijiyadooda waxaa ka mid ah الصفح والعفو عن الناس وحالة الغضب aan eegno taariikhda islaamiga ah iyo nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam qadaaya siyaasa alumma siduu ugala dhaqmay maadaama aynu nidhi qaa'idka naajixa ama hogaamiyaha guulaystay ee la yaqaano waa hogaamiyaha dhaqankiisa uu ka mid yahay inuu cafwiga qaato nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu naqaanaa inuu dagaalo galay mithaal dagaaladii uu galay waxaa ka mid ah dagaalkii uxud gaaladii quraysheed baa muslimiinta kusoo duushay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam masaajidku shir ugu qabtay wuxuu weydiiyey maxaynu yeelnaa miyaynu u baxnaa mise waynu joognaa dagaalkii hore beder dhalinyaro badan oo muslimiin oo aan ka qeyb gelinayo dadkii xamaasadda haysay waxay idhahdeen aan baxno maxaynu gaalada halka ugu sugaynaa xagga hore aan isku aragno waa la soo baxay dhexda markii la marayey ayaa nin waayeel siyaasiya oo cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la yidhaha ra'si lmunaafiqiin ninkan munaafiqnimada kursi siyaasadeed baa u geeyey inta badan bay culammadu sheegaan waayo nebi maxamed madiine wuxuu yimi isagoo taajkiisa la tolayo dabeetana wuxuu arkayaaba in nebi maxamed uu hogaamintii ummadda ka qaaday oo kursigiisii lumiyey ninka kani wuxuu yidhi annagoo dadkii waayeelka magaalada u dhalan inaan nala aqbali maayo dhallinyaradan iyo warkana waa la aqbalaya xawaali 1,000 nin bay ahaayeen dadka meesha marayba 300 dad gaadhayuu dib u jabsaday oo ka noqday dagaalkii 700 soo hadhaa dagaalka gashay gaaladii waa la jebiyey markii hore see taariikhda ku wada naqaano koox muslimiinta ka mid uu nebigu meel yidhi ilaaliya ayaa yidhi war gaaladii jabtaye maxaynu meesha ka sugaynaa inu xoolaa wax ka boobno haniimadu yayna dhaafi ninkii madaxda habay ka yimaadeen dagaalkii bay sida ku soo galeen waxbaa la gurtay gaaladii waa soo rogaal celisay meeshan socda waa kan muslimiintii waxaa ku dhacay marka kan jab aada u xoogan oo keensaday in 70 nin oo saxaabadii waaweyneyda oo nebiga adeerkii uu ku jiro la dilo bal la tamthiil lagu sameeyo la googooyo beerka xamse qof dumar calaaliso say taariikhyahanadu soo naqlayaan waxay gaadhay xad nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam god loo qoday uu ku dhaco koofiyadii birta ahayd ee madaxa uu ku sita ee dhabanada ka gasho dhooshan hoose laga jebiyo dagaalku uu ku cuslaado xad in yari saxaabadii intay isba kala garan weyday iyagu dhexdooda ay isdilaan in yari oo kooxi ay ku soo hadho 9 nin baa ku soo hadhay 9kii 7 ka mid a xabad xabad loo dilay insixaab ay sameeyeen oo buur is idhaahdeen kora buurtii uu nebi maxamed fuuli kari waayo loo fadhiistay si uu uga tallaabo meesha tan salaadii duhur uu fadhiga ku tukaday mushkilad baa muslimiinta soo gaadhay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiiba saxaabadu markii la jabay rag waaweyn oo saxaabada ka mid ah maalintan si fiican baa loo jabay goobtaas orodkii rag baa madiine ku galay tawalli yowm zaxf jeestay oo madiine galay qadiyadda sidaas iyabaa ilaahay qur-aan soo dejiyey la barayo nebi maxamed siduu ula dhaqmo saxaabadan jabtay waxaan oo dhibi qabsatay saxaabadan akhtaadaa gashay akhtaa baa ka dhacay ilaahay baa le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira laakiin nebiga sidee la yidhi ula dhaqan ilahay wuxuu leeyahy subxaanaه watacaala fi suurati ali cimraan aayaadka ku jira fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه فبما رحمة من الله لنت لهم إلهي نحريس حقي سكتمي درادت سببتت أياد قد بعده
jilicsanaatay baa ilaahay leeyahay saxaabada tan ilaahay baa qalbigaaga naxariis geliyey baa la leeyahay haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyahay ku engegan oo qalbi adag faddan ghalida alqalb ku dabeecad qallafsan oo qalbi adag oo aan naxariistaba aqoon haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik baa ilahay yidhi way kaa yaaci lahayd walow xaqana sheege xaqa bini aadamku kuma raaco inuu xaq yahay oo qura ee marar badan buu wuxuu u baahdaa ciddan xaqa sheegaysa inay noqoto cid bashar hogaamin karta oo wadi karta hadduu wadaadku jacjacoor noqdo dabeecad qallafsan walow xaqana ha sheegee waa adagtay inuu yeesho atbaac iyo cid wax ka barata iyo cid la joogta ilaahay markaasi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala nabigiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad qalqallafsanaan lahayd oo dabeecad adkaan lahayd dadku wuu kaa yaaci lahaa ee maxay yeel baa la leeyahy markaa wadciga caynkaa u ekaaya sida ay u jabeen ee dhibtaasi soo gaadhaa ilaahay wuxuu yihi facfu canhum cafi saxaabada tan wastakfir lahum ilaahayna dembi dhaaf u weydii wixii khatae ay galeen ilaahay dembi dhaaf u weydii washaawirhum fi lamri baa ilaahay yidhi arrinkana wax ka sii talada dadka badh baa waxay u haystaan talada in yaroo saalixiin uun intay iyagoo afkaysa saartay inay leeyihin maya talada ummaddaa leh in wax laga siiyaabay xaq u leedahay ilaahay wuxuu ku leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiya oo rasuul ah oo dadka ilaahay ka doortay oo u caqli badan ayaa waxaa la leeyahay oo waxyi ku soo degayo oo ilaahay hagayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay talada dadka wax ka sii cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo taladana wax ka sii baa ilahay yihi subxaana wa tacaala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaas buu kula dhaqmay iyadoo la jabay bay waxay noqotay inay haddana dadka kane uu dib u hogaamin karo oo dhibaatadii soo gaadhay ay ka soo kaban karaan siyaasaddu nebigu kula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kaasi waa siyaasa daakhiliya nebigu calayhi salaatu wasalaam fi siyaasa alkhaarijiya nafsi shay buu kula dhaqma aan laba qadiya iyana ka tilmaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam maka reer maki way dhegaysan waayeen dhagahanay ka furaysteen waa la dhibay waxay soo gaadhay ciddii uun garab u ahayd galyo muslimba cidday doonaan ha ahaadaane ama abi aalib ha noqdo ama khadiijo ha noqoto ama inay dhinteen saxaabadii in ka midina hijrootay ama ka baxday wadanada wuxuu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwo inuu fidiyo bal reer maka waa kuwan oo adkaade madiina thaaniya haqiif inuu tago reer bani haqiif daa'if inuu tago oo dacwo ka sheego reer daa'ifna waxay kala hor yimaadeen saynu taariikhda ku hayno dhagaaday kii horeba ka daran waa la soo shiiday dumar iyo carruur baa lagu diray dhiig baa madaxiisa laga keenay gomadaha cagaha dhiiggu ka da-ay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku qorane wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu leeyahay ifaaqa mahmuumka siduu ahaayo u warwarayay maan baraarugin ama maan toosin wuxuu maans arkay buu leeyahy anigoo qarnu thacaalib maraya intuu intaa soconayay kaana aanu humuumka iyo dhibtii haysatay meel uu u socdiyo meel uu marayaba garanaynin qarnu thacaalib anigoo marayun baan is arkay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xaaladda caynkaasiyo isagoo ku jira oo nafsiyan sidaa cidhiidhi u dareemay ayaa ilaahay min cinda malag u soo diray malag baa la soo diray xadiiska saxiixeynka ku jira bukhaari iyo muslim wuxuu sheegayaa malag baa u yimi oo yihi ya muxamed ina allaha qad samica qowla qowmik wa ana malaku ljibaal ilaahay wuu maqlay warkii tolkaa waxay kaala hor yimaadeen aniguna waxaan ahay boqorka buuraha u xil saaran rabbi baana ii kaa soo diray waxaana la ii soo diray lita'muranii bima shi't fama shi't maanta waxaad doonto inaad i amarto ee maxaad rabtaa haddaad rabta buu leeya in shita adbaqtu calayhim ilakhshabayn labada buurood ee maka hararaa ku yaalla kor intaan u qaadaan dusha ka saaraya reer maka maxaad fili lahay qofkeena caadiga ahi ee intuu dad xaqu sheegay ay dileen oo kuwo kale u tegay ay soo dileen oo ilaahay u gargaaro la yidhaahdo buuraa dusha ma laga saara dhulka ilaahu la goobaad odhan lahayd bay u badantay waaba ka soo harin laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
qalbuha awsac min dalik. wuxuu leeyahay faqaala bal arju an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu laa yushriku bihi shaya. man yacbud allaha waxdah, may buu leeyahay waxaan rajaynaya xataa kuwani hadday dhaga adeygeen in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii caabuda waan cidna ugu shiriig yeelin. ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo saaro diintaynu maanta haysanno dadkiina soo gaadhsiiya kuwaasay ahaayeen. qurayshta iyo ansaartaasi muhaajiriin iyo ansaar ah oo dadkaas ka mid ahaa ayay ahaayeen. waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii tacaamulihi maca alxuruub, dagaaladu la galay dadka kale iyo siduu la dhaqmay. kani waa isagoo keliya, bal aan eegno isagoo ciidamo wata. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sano ayaa maka lagu dhibayay, isagoo madaxiisa geela cascas la dul saaray oo baxsiyuu ka baxay maka. 12 maalmood buu dhexda kusii jiray. akhiiran wuxuu tegay maxay? madiina. madiine quraysh kuma dayna, dagaal bay ka dabageysay. 6 sannadood oo kale ay weerar ku hayeen haddana, oo beder iyo uxud iyo khandaq iyo wixii la midi dhaceen. waxay u diideen inuu xaramka usoo cimraysto. 19 sannadood markay marayso ayay aqbaleen inay heshiis la galaan. laakiin haddana heshiisku markuu 2 sano qura jiray ayay buriyeen. sanadkii 21aad ayay haddana heshiiskii buriyeen. nimankaa 19 sannadood colaaddu u dhaxaysay, 2 sano qura intay la heshiiyeenna heshiiskii buriyey ayuu nebigu ciidan soo qaaday. ciddii isaga heshiiska ku raacdayna dagaalada ku qaaday ayuu nebigu markaa soo duulay, isagoo 8,000 ilaa 10,000 ciidan u dhexeeya watuu maka soo galay. xoog buu qeybo ka mida maka ku qabsaday. maka markuu soo galay, qurayshi waa isu tagtagtay. waxaa la yidhaha la hadalna nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam. maxaa filaysaan buu yidhi marka. dee maanta war kale ma yaalo aan isbihinbihis ahayn. akhun kariim wabna akhun kariim, warkaasay sheegeen. walaal fiican iyo in adeer fiican baanu rajaynaynaa inaad noqoto. ahlu siyarku waxay soo wariyaan inuu yihi inطaliquu idhabuu fa antum طulaqaa. culamaa ilxadiidna waxay dhahdaan sanadku ma asixin, laakiin sanad kale ay xasan ku sheegayaan bay soo arooriyaan, oo inuu waadhii uu nabiyullaahi yuusuf daliishaday inuu sheegay laa tahriba calaykum alyowma yakfir illahu lakum wahuwa arxamu الraaximiin. laakiin alqisa bimujmaliha waxa weeyaanun waa cafiyey. nimankii intaas oo sannadood dagaalku u dhexeeya, wax walba la isla soo maray, markuu qabsadee kasoo xoog batay muu odhanin madaxa ka gurayaan xabadi ka baxsanine. nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska cafiyey. idan waxaynu leenahay siyaasad dakhliya nebigu wuu ku isticmaalay oo jamaacadiisii akhtaada gashay inuu cafiyo. siyaasa alkhaarijiya iyo mushrikiin wuu kula dhaqmay, oo kuwii wax kasta u geystay markii ilaahay malakuljibaal u soo diro inuu iska cafiyo oo yidhaahdo waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda kuwa wanaagsan ka soo saaro. oo kuwii dagaalka iyo xoogga ay isku daleen markuu isu yimaadeen uu ku xoog batay wuu cafiyey. aan eegno bisifatihi shakhsiya kuwii weeraray marka isku dayay inay dilaan ama sumeeyaan. xadiidka bukhaari, nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal ka soo noqday ayay meel dooxa ah 2 buurood dhexdooda ayaa ciidankii muslimiintu degeen. dhir baa la kala hoos harsaday. geed weyn oo meesha ku yaallaa nebiga loo baneeyey. waxaa la yidhi geedkaa nebigu ha harhsada, inana meelayna kala harhsano. nabigu calayhi salaatu wasalaam geedkiibu iska harhsaday. seeftii uu sitayna laan buu sudhay geedka ka mid ah, dabeetana uu iska seexday. muddaa dagaalka laga soo socday, waa la daalanaa, habeen baa la guureeyey, subxii baa la socday, iyadoo la daalaya meesha la jiifsaday. gaaladii nin ka mid unbaaba iska soo dhex maray ciidankii. nebi maxamed oo geed hoos jifa buu isa soo dul taagay. seeftii nebi maxamed buu la soo baxay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana galku ka saaray. nebigu wuxuu indhaha kala qaaday iyadoo gaal dul taagan yahay oo seeftiina gacanta ku haysto. gaalku markaa de wuxuu arkaa nebi maxamed inuu ka takhalusi karo,
intuu eegay buu wuxuu ku yidhi man yamnacni mink, yaga kaa dhicinaya maanta, yaga kaa celin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allah, ilaahay baa iga kaa dhici, waa ku celiyey. isaga uma qurqursano taasi. man yamnacni minka buu leeyay, yaga kaa dhicinaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu ku celiyay haddana allah. riwaayadda bukhaari waxay leedahay seeftii buu galka ku celiyey. riwaayad kale axaadiista soo arooray waxay tilmaamayaan inay kaba dhacday. dabeetana uu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam, uu isna yidhi man yamnacni mink, anigana yaga kaa rebi haddaba. markaasuu baryootama wuxuu leeyahy ku seef qaata kii uu khayr badnaa noqo, iska kay cafi. ninkiiyo halka fadhiyo nebiguna seeftiisa haystay, saxaabadii soo toostay waa u yimaadeen. nebigu qisadiiba u sheegay, anigii ninkan waxaana dhex maray ma maqasheen buu yidhi. anigu halkaa jiifa oo caynkaasiya. nebigu waa iska cafiyey. waa kuma madaxweynaha maanta dunida jooga isku day dilinta lagu sameeyo odhan doona waan iska cafiya, iska baxo. never in history kuma haysaan taariikhda bini aadamkee la hayo. aan si kale eegno, nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaaladii isaga iyo yuhuudda dhex maray waxaa ka mid ahaa dagaalkii khaybar. dagaal ku adkaaday weliba ahaa. dhowr maalmood saxaabadu ay dagaalamayeen, ay furan kari waayeen. maalintii dambe uu nebigu yihi nin ilaah iyo rasuulkiisuba jeceliyeen, isna jecel baan u dhiibayaa raayada jihaadka. cali bn abi aalib oo bakoora ku dhacday oo meel fadhiyo, calimee waa bakooraysanyaa la yidhi, u yeedha. waa ku tufay, indhaha ilaahay fay uga siiyey. cali buu u dhiibay. waa la dagaalamay. akhiiran meeshii way qabsadeen. khaybar markii la qabsaday nimankii yuhuudeed waxay dhahdeen maxaa tala ah, xoog wax iskaga dhicin weyne maxaynu yeelnaa? mu'amara thaaniya, waxa la yidhaha subayno ka takhallusan. neef adhiya ayaa halkan loo shiilay. dabeetana waxaa la yidhi xagguu u jecel yahay, diraac buu ugu jecel yahay baa la yidhi, neefka sumeeyo halkaa sunta ku badiya baa la yidhi, meeshuu isagu jecel yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa neef adhiyoo la moofeeye loo keenay iyo saxaabadiisii. hadiyaadka ma diidi jirin nebigu. soo fadhiistuu yihi saxaabadiio cunis baa lagu dayey. ilaahay baa u waxyooday in neefkani sumaysan yahay. diraacu kor u qaadaa u sheegay inuu sumaysan yahay. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dhigay buu wuxuu yidhi yuhuud wixii halkan jooga bal igu yeedha. waa loo yeedha. wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innii saa'ilukum can shayin fahal antum saadiqay canhu. yahuuday waxbaan idin weydiinayaa ee run ma ii sheegaysaa? haabay idhahdeen run baanu kuu sheegaynaa. wuxuu nabigu ku yidhi man abuukum, yaa aabbihiina, yaa ku abtirsataan? waxay idhahdeen fulan bin fulan, reer hebel baanu nahay. kadabtum bal abuukum fulan buu nabigu yihi, been baa ii sheegaysaan. aabbihiin hebel maahee reer hebel baa tihin, hebel baa ku abtirsataan. waa runtaa bay idhaahdeen. war waxbaan idin weydiinayaa marka loo ku celiyay, run ma ii sheegaysaan? haabay idhahdeen. waayo haddaanu been sheegno dee waabaad garanaysaa bay idhahdeen, saadkan ba u garatay. wuxuu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam man ahlu naar, naarta yaa gelaya? waxay idhahdeen in yar baanu anagu ku jiraynaa, dabeetana idinkaa nooga dambaynaya. yahuudi waxaan rumaysantahay 40kii cashe ee ay dibiga caabudeen inay iyagu intaa la cadaabayo, kadibna dadka kale lagu gurayo iyagoo ay ka baxayaan. waxay dhahen waxoogaa baanu anagu ku jiraynaa, laakiin idinkaa nooga dambaynaya. nebigu wuxuu ku yihi ikhsa'uu fiiha wallaahi laa nukhlifukum fiiha abada. ku hooge ilaahay baan ku dhaartay inaanan weligiin idinka dambaynin naartuu ku yidhi. war waxbaan idin weydiinaya, run ma ii sheegaysaan bay idhahdeen. nacam ya abalqaasim baa la yidhi, run baanu kuu sheegaynaa baa la yidhi. wuxuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam hal jacaltum fi hadihi shaati summa, neefkan adhiga ah sun ma ku darteen, ma sumayseen hilibkan? marka kan warkuu ku cadiyey, waxay sameeyaan oo kala garan maayaan. qaaluu nacam bay idhahdeen, waa sumayna. qabqabtoo laaya nebigu ma odhan. wuxuu yihi famaa xamalakum calaa hada, maa xamalakum calaa dalik, maxaa idinku xambaaray, maxaa idinku kalifay
ina siday tan yeeshaan. waa yuhuud waa niman intelligenta meel kale isku dayan inay ka baxaan. waxay yidhaahdeen waxaanu rabnay dee haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto, haddii aad nebi tahayna dee waa lagu waxyoonaya waad iska badbaadi doontaa. saasay nala ahayd bay idhahdeen. waxaanu rabnay haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto, haddii dee aad nebi tahayna in kunta nabiyan lam yadurak. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba kuma waa iska cafiyey. walidalik baa imaam albukhaariyi wuxuu baab uga dhigay baabu idaa gadara almushrikuuna bilmuslimiin hal yucfaa canhum. gaaladu hadday muslimiinta khiyaamayso ma la cafinayaa buu baab uga dhigay. dabeetana xadiidkan buu keenay isagoo tilmaamaya inuu nebi moxamed cafiyey calayhi salaatu wasalaam. bale qaacidada caamka ah ee qadaayaadka nebiga ku gaarka u taalay waxay ahayd anas ibnu malik xadiidkii bukhaari uu sheegayay man taqama rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam linafsihi qad. nebi moxamed wax isaga gaarkiisa loo yeelay abidkii kama aargudanin, wuxuu doonaba ha noqdo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha wax bini aadam lagu sameeyo oo dhib oo aan la dhibini ma jirto. wamaca dalik waa in la sumeeyaa la isku dayay, in xoog lagu dilaa lagu dayay, in dhagax lagu dilaa lagu dayay, wax kasta waa lagu dayay. haddana man taqama linafsihi qad. qaacidadiisu waxay ahayd buu leeyahy khaadimkii 10 sannadood u shaqaynaya anas ibnu malik, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam abidkii ma aargudanin, dabcigiisaba kama mid ahayn. waa kuma ra-iiska ama boqorka maanta dunida jooga inta la sumeeyo odhanaya khalluuh sii daayo odhanaya. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laa khiyaano cudmaabuu ku qaaday walaa waxbuu ku qaaday, waa iska cafiyey. waxay leenahay bini aadamka colaadaha dhex mara maxaa ugu dhib badanee ka dhici kara? waa dil soo maaha. wax dil ka weyni miyuu bini aadam ku dhacda? dil baa ugu badan. dilka baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fii baabi dimaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faاtibaacu bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxma. ilahay wuxuu leeyahy faman cufiya lahu min akhiihi shay, ciddii laga dhaafo min akhiihi iyadoo dil dhacay baa qur-aanku wuxuu tilmaamaya walaalnimadii islaamiga ahayd weli inaanay go-in. in dadku iyagoo isdilay oo dhibi dhex martay haddana alukhuwa alcaama fi lislaam inaanay weli dhammaanin. markaase waxaa la yidhi ninka walaalkii wax ka mida laga cafiyo dilka. fi shariica waxaynu naqaanaa qofka dil geysta qisaas baa lagu leeyay ama qawad baa lagu leeyay. macnaheed waxay tahay in lasoo qabto oo la keeno. kaysku hadduu ku caddaado ciddii weliyu damka ahayd ee dhiigga lahayd waxaa u bannaan inay yidhahdaan ha la dilo naloo dilo qofkan. waxaa u bannaan inay dilka ka cafiyaan oo ay mag qaataan. bale waxaa u bannaan bay culimmada qaar leeyihin inay siiba daayaan, walaa mag walaa waxba toonaanay qaadan, inuu toos u cafiyo. idan wixii ugu adkaaya bini aadam dhex mara waa dil. dilna ilaahay wuxuu leeyahy qofkii walaalkii wax ka mida laga cafiyo. maxaa jira? faاtibaacu bilmacruuf ay facala alcaafi, kii wax cafiye waxaa korkiisa ah itibaacu bilmacruuf, inuu magtiisa iyo wixii uu qaadanayo sama uu ku weydiisto. kii wax laga cafiyeyna adaa-un ilayhi biixsaan baa isna korkiisa ah, inuu si wanaagsan magtiisa ka bixiyey iyo wixii kale laga rabay. dalika takfiifu min rabbikum waraxma baa ilahay yidhi. kaasi waa takfiifu min rabbikum waraxma, waa fudaydin aan laydin fudaydiyey subxaanahu wa tacaala. waxa dilka ka hooseeya ee dhaawacyada ah ee isagana qisaastu ka jirto, il loo rido ama gacan loo gooyo ama dheg ama san, ilaahay wuxuu leeyahy wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاludun wالsina bالsini wاljuruuxa qisaas faman taصadaqa bihi fahuwa kafaaraة lah baa ilahay. faman taصadaq, nafta naf baa loo gooyaa, isha il baa loo ridaa, sanka san baa loo jaraa, dhegta dheg baa loo gooyaa, iliga ilig baa loo ridaa, wixii juruuxeenna barri waa qisaas. faman tasadaq baa ilahay yidhi qofka sadaqadaysta
yacni bian cafaa can iljaani qofka cafiya qofkii jaaniga ahaa ee ama aqbala inuu diyo mag qaato juruuxaad ee ishii inaanu odhan ishii ha layga ridee magteedu inuu qaato amaba cafiyey fahuwa kafaaratun lahu baa ilahay yihi subxaana wa tacaala. idan ayuha alikhwa, nolosha dhibta bini aadamka soo martaa noocay doontaba ha noqotee cafigu wuu galaa. sida awgeed baa anas ibnu malik xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajaba warinayaan, sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay, wuxuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, anas ibnu malik baa wuxuu yihi maa ra'aytu nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam rufica ilayhi shayun fiihi qisaas ilaa amara fiihi bilcafw. maan arag buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo keenay shay qisaasi ka sugan tahay ilaa iyo wuxuu yihi warbar horta iscafiya. nebigu wuu celiyey inay iscafin karaan buu ku dayay. yacni wuxuu anas ibnu malik rabaa inuu inoo sharxo inay qaacida caamatay. cafigu ayuha alikhwa waa dadka kibaarta ahi waxay samayn karaan. innaga waxa laga yaaba dhaqankeenna ninnimada inaynu u naqaano marka far lagugu taago inaad shanta ku taagto waa nin rag oo wax iska dhiciya baa la ydhahda. ama cafisku nooc min adullinimo ama liidashanimo ama tamaryari ayuu dhaqanka soomaaliga ka yahay. walidaalika ayuha alikhwa, haddaad dib ugu noqoto taariikhda islaamiga, maalan saxaabada waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray qays ibnu caasim ilminqariy, reer bani tamiima. qays ibnu caasim xadiidka xasan ligayrihi adab ilmufradka ku soo aroray, sheekh alalbani waa ninku ku tilmaamay inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hada sayidu ahli lwabar, reer baadiyaha waa odaygooda. qays ibnu caasim wuxuu ahaa nin waayeela oo saxaabiya oo xoolo badan oo halkuu dego aan lala degin bay yidhahdaan xoolihiisa tirobadnidooda daraaddeed. dooxaduu dego dadka kale ma degaan, ninkan xoolo badnidu qabo. waa ninkii nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam intuu u yimaado xoola maxaa u fiican, ee uu nebigu u tilmaamayey xoolaha inta la dhaqdo inaan la ysku badinin oo kale. ninka kani carabtu ninkay u yaqaaniinba inuu dulqaad ku caanbaxay oo axnaf ibnu qays. axnaf ibnu qays waa nin fii zaman iljaahiliya noolaa, nebiga bicsadiisii joogay laakiin nebiga aan la kulmin, saxaabadii la kulmay oo islaamay. marka waa taabici mukhadrama, nebigana ma arag, haddana waa islaamay. wuxuu ka mid yahay carabtu dee dad baa ku caanbaxa wanaagga. maalan xaatim iطaa'i deeq buu ku caanbaxay. ninkanina carabta waa ninka dulqaadka ugu caanbaxay. axnaf ibnu qays waxaa la yidhaha muuqaalkiisa nin ila oo wagdale oo gaaban oo aan qurux badnayn buu ahaaba la ydhaha muuqaal ahaan, laakiin wuxuu ahaa carabi ninkay tidhaahdo xilmi iyo dulqaad marka laga waramo waa yeelkeeda. axnaf baa waxaa la yidhi dulqaadkaniyo yaa ku baray? wuxuu yihi qays ibnu caasim baan ka bartay. qays ibnu caasim kanaan ka warramaynay saxaabigu ka bartay oo suuga bartay. wuxuu leeyahay qays ibnu caasim oo goob fadhiya naadigiisii oo sheekaynayo hadlaya, iska doonyaysanoo hadlaya, ayaa waxaa la keenay inanuu dhalayoo meyda iyo kii dilay oo laysku wado xidhxidhan baa loo keenay. dabeetana kii xidhxidhnaa buu sidaa u ego wuxuu yidhi waryaadheen laqad ducirtum lfataa buu yidhi, warkan waa argagax geliseen. hadde waa kii dilka sameeyey. warkan waa argagax geliseen, war bal xadhigga ka fura buu yidhi. xadhiggaa laga fura. dabeetana wuxuu ku yidhi ninkii buu la hadlayo waryaa waxaad samaysay waa wax fool xun, tolkaa tiradiisii waad yaraysay, xooggiisiina waad daciifisay, cadowgaana waad xoojisay, rabbigaana waad danbaad ka gashay, raximka iyo qaraabadaana waad jartay. iska sii daaya buu ku yidhi. meydkii inankiisii baa isku waday, waxaa kan inanuu dhalay oo kale meesha taagan bu wuxuu ku yihi dhegayso, meydkanna soo tajiise maydha oo diyaariya oo marka xabaasha lagu ridayo salaada lagu tukanayo iisoo sheeg. islaantii inankan dhashayna reeraha kama mid aha buu yihi oo waa naxaysaaye geela halkaa jooga diyadii ka siiya.
waxay dhahdaan mowqicii shirka isagoo siduu u fadhiyay aan bedelin oo weli warramaya oo aan kicin oo qadiyadaniba argagax gelin ayuu wuxuu faray kanna in la sii daayo wax dilay kan la dilayna in la diyaariyo meydkiisa hooyadiina inankeedii baa la dilay in mag la siiyo meydkan marka la diyaariyana in loo yeedho dabeetana warkiisiibuu watay axnaf ibnu qays wuxuu leeyahy maantaa markaan arkay qays ibnu caasim siduu yeelayay maantaas baan dulqaadka bartay buu yidhi waxaan u jeednaa wixii badheedhka ahaa waa kaa ama hadduu khata isagu u dhacaba isnaan xadiidka bukhaari idiin tilmaamo ghaswat uxud markay dhacday wakhtiyadii muslimiintu ay iskala garan weyday isdilaysay markii calankoodii raayadii ay eeganayeen muscab ibnu cumayr la dilay jabkii uu ku bilaabmay ayay isba kala garan waayeen dabeetana muslimiinta dhexdooda isdishay xudayfata bnulyamaan ayaa wuxuu arkay aabbihii xudayfe iyo aabbihii ghaswatu bader markii lagu jiray bay madiino yimaadeen marka dad macruuf oo aada loo garanaya maaha xudayfa wuxuu arkay aabbihii oo saxaabo kale seef ku boobayso dabeetana wuu istaagay isagoo leh abi 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 war waa aabbahay isagoo leh buu istaagay xudayfa cidi uma jeesan oo dagaalku uu socdaa dadku waaba dhiban yahay odaygii seeftaa lagu boobay kow baa lagaga siiyey xudayfa wuxuu isa soo dul taagay aabbihii oo naftu ka baxdo kow lagaga siiyey ragga dilayna ay saxaabo yihiin wuu eego wuxuu ku yidhi markaasi gafara allahu lakum buu yidhi ilaahay dembigiina ha dhaafo buu yidhi oo iska taag xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamayaa maantaa kadib khayr kama suulin xudayfa suu dadkaasi isaga cafiyey yacni aabbihii uu arkayo hortiisa lagu dilayo uu leeya war waa aabbahaya ka daaya ayuu ka gaari kari waayey markii la dilayna kuwii dilay wuxuu u arkay inay khata ku dileen dabeetana iyagii buu u ducaynaya wuxuu leeya ilaahay dembigiina ha dhaafo haddii qadaayaadka dilkii kuwaa yihiin qadaayaadka ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa iyanaan laba qiso qur-aanku inoo tilmaamo qur-aanku wuxuu ka warramaya fii suurati yuusuf nebi yuusuf iyo walaaladii wixii dhex maray nebi yuusuf oo inan yara ayay walaaladii ximiyeen dabeetana way qaadeen inay dilaan iyo inay god ku ridaan bay kala doorteen god bay ku rideen ilmo yaroo carruuroo god lagu riday safar baa soo maray way qaateen waa addoonsadeen waa iibiyeen addoonnimuu ku dhacay haddana awal god buu ku jiray godkii markuu baxayna addoonnimuu galay waa la addoonsaday gabadhii casiizu masr boqorku uu qabay baa hunguraysay waa diiday hala xidha baa la yidhi kani qoyskaabuu ceebaynayaa haddana jeel buu galay xabsigii buu 10 sano ku dhowaad ku jiray ilaahay baa ka soo daayey madax buu noqday nebi yuusuf nolol aada u kala durugsan buu maray markaa nolol isagoo yar aabbihii laga kaxeeyo iyo reerkoodii iyo god lagu rido oo la addoonsado oo jeel uu galo waxaasoo dhan markuu ka soo baxay ayuu haddana madax noqday isagoo wasiira oo madaxa ayaa walaaladiisii godka ku riday u yimaadeen wuu wanaajiyey waxba uma sheeganna walaalkiinii keena buu ma jiraa wiilaa walaalatiin haa walaalkiin haddaa keentaana raashinkan idiin badinaya waa keeneen akhiiran walaalkii makiida uu kula hadhuu samaystay oo ah suwaacilmelik boqorku wixii uu wax ku miisayay ayaa weelkooda lagu riday waa la baadhay weelkii walaalkii waa laga soo saaray walaalkii uu rabaa inuu la hadho marka kan haddana iyagoo nebi yuusuf hortaagan ayay haddana isaga caayayaan iyagoo aan garanaynin qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu bay yidhahdeen hadduu kan yari waxaday ku ka weyn oo ay walaaliyiinoo tuuga ba ahaan jiray bay yidhahdeen waa yuusufkan hortaagan ay godka ku rideen haddana boqorka ah ayaa waxay leeyihiin kan yar hadduu waxaday walaalkii buu la dhaqanyo waxaa jiray mid ka weyn oo ay walaal ahaayeenoo tuuga ilaahay wuxuu leeyahy faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun yuusuf wuu ka xishooday xataa inuu yidhaahdo beenaalayaal iyo idinkaa tuuga ee wuxuu ku yidhi idinkaa ka shar badan buu hoos u yidhi baa ilaahay yidhi naftiisa
waxba iyaga kuma odhan akhiiran waa yimaadeen wuxuu u sheegay inuu isna yuusuf yahay kana walaalkiiya ilaahayna badbaadiyay aabihiina ii keena buu yidhi qaaluu tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunaa la khaatiin bay dhahay ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay waa naga kaa doortay annaguna dembiilayaal baanu hayn bay dhahdeen wuxuu ku yihi laa tasriiba calaykum alyowm canaaniba korkiinna ma ahaanin yakfiru allahu lakum ilaahay dembigiinna ha dhaafo wa huwa arxam araaximiina iska taga yacni yuusufkii ay godka ku rideen haddana isagoo markuu bilaa tamarta ahaa god bay ku rideen godkii wixii ka dambeeyeyna wuxuu noqday inuu addoonnimo iyo xabsi uu galo waxaasoo dhan isagoo soo maray ayay haddana cay ula yimaadeen isagoo madaxa waxaasoo dhan buu ka cafiyey bale culammadu waxay idhaahdaan yuusuf reer kala lumay oo isaga iyo walaalkii dhan mareen oo inamadii kale dhan mareen oo kii u weynaa inamada kale waa kii yidhi markii ka yarna la waayay anugu aabbahay ku noqon maayo isna dhan u baxay odaygii indhabeelay yacquub ahaa nabiyullaahi yacquub reer dhan buu dib u soo ururiyey reerkaa wuxuu isugu keenay bay yidhahdeen kalimataan cifatu lisaani waalcafwi bay yidhahdaan carabkiisa oo aanu ku aargoosanina uu dhowray xataa waxay yidhahdaan walaaladii isagoo khaatirkooda dhowraya markuu ilaahay baryayey wuxuu sheegtay maxay waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wa jaaa bikum min albadwi buu yidhi ilaahay waa ii samafalay markuu anigana jeelka iga soo saaray idinkana baadiyaa idinka keenay ilaahay buu u sheeganayaa jeelka iyo godka iyoma daran jeelka bini aadam baa ku nool oo waxba lagu siinaya dad baad la noosha god cidla adigoo caruuray lagu rido godkaa khatarsanaa labada muu odhanin bay yidhaahdeen ilaahay ana godka iga soo saaray idina baadiyaa idinka keenay isagoo khaatirka dhowrayabuu wuxuu yidhi dembigoodii iyaga ma sheegine dembigii boqortooyadu sheegay ilaahii anigana jeelka iga keenay idinkana baadiyaha iga keenay waxay dhahan waa cifatu lisaan xataa in yaroo tajriixa inay dareemaan ayuu diiday waanu cafiyey annimaadna cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa dhacdooyinka macruufka ah ee nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dad buu la dagaalamayay gaalo ah munaafiqiin baa ku dhex jirtay muslimka raba inay burburiyaan nebiguna uu gacantiisa ka dhowray aanu rabin inuu laayo isku day dil bay ku dayeen wahamuu bima lam yanaaluda ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo wax kastay ku sameeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam maca dalik si aan bulshada muslimka ah khalkhal iyo muran u dhexgelin aan la odhan nebi maxamed cidda la socoto u laaya nimankii waxaa sameynaya munaafiqiintaa nebigu ma laynin waxna isagoo garanaya bale saxaabada qaarkood xudayfa ibnulyamaan u sheegay hebel inuu munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo wuu sheegay magacyadooda biasmaa'ihim buu qaar ugu sheegay haddana nebi maxamed ma laynin isagoo ilaalinaya sumcadda ummadda muslimiinta oo leh markay yidhaahdeen aan dillo waa munaafiqaniye wuxuu nebigu ku yidhi waxaan kaa baqayaa inay dadka kale ku sheekaystaan nebi maxamed ciidankiisu laaya dadkiisu laaya waa xujoobay inuu yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintaasi dagaal bay ku qaadeen dagaalkay ku qaadeen waxaa ka mid ah cirdigiisa iyo sharaftidiisa inay wax ka sheegaan inay yidhaahdaan nebi maxamed xaaskiisa ayaa nin kala raacday oo zinaysatay caaisha radia allahu canha ilaahayna saxaabadii wuu itixaamayo nebigaba wax waxyiya oo masalada ku saabsan bil baan laga soo dejinin bil baa magaaladu war a waday caaisha zinaysatay nebi maxamedna aamusna waxyina samada uu ka iman waayey caaisha ay xanuunsatay oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed la geeyey oo warku tiro batay warkaa tirada batay dadkii runta mooday saxaabaan munaafiqiinta ka mid ahayn baa ku jiray saddex baa ka mid ahaa ninkii gabyaaga ahaa ee xasan ibnu thaabit la odhan jiray warkaa run buu mooday dadka faafiyo ku jira xamna bintu jaxash warkaa run bay mooday zaynab walaashay oo iyana waxbay sheegtay mistax ibnu athaat nin la yidhaahda isna run moodo wax sheegay ninkan mistax la yidhaahdo abibakar waa qaraabo
waayo Mistax hooyadii iyo Abibakar baa habro wadaaga marka abtuu u toosay. Mistax waa nin muhaajira oo Maka raggii ka soo hijrooday diintooda la soo hijrooday laakiin wuxuu ka mid yahay fuqarada muslimiinta. Abibakar baa beeliya isagii hooyadii laakiin warkan buu run mooda uu ka qayb galay. bil kadib baa Ilaahay quraan soo dejiyay caasho looga markhaati furayo inaanay zaaniyad ahayn. ciddii tidhaahda caasho waa zaaniyad Ilaahay buu beeniyay uu ku gaaloobaya. Ilaahay baa quraan soo dejiyay ilaa Caaisha xuma kuma dhicin. kuwii warkaa sheegayna inay munaafiqiin yihiin. Abibakar culamaa ilxadiid markay ka warramayaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin xaruuriya, nin cadhab kulul buu ahaa markuu cadhoodo. mawaaqifta axaadiistu ay ka soo aroorisaan aad ka dareemaysaa inuu cadho kululaa laakiin nin qabsoomana wuu ahaa oo marka xaqa loo sheego markaaba cadho burburka uu ka baxo. Abibakar wuu cadhooday, wuxuu ka cadhooday ninkaa gurigii nebiga wax ka sheegay ee inanta yar ay qaraabada yihiin wax ka sheegay ee Abibakar dhowri waaye ee uu ninkaa biilinaya wax siinaya wuu ka cadhooday. cadhadii buu Abibakar waan dilayaa iyo waan argoosanayaa iyo waxbaan yeelaya baabkaa ma marin. Abibakar wuxuunbuu ku dhaartay war wax dambe ku siin maayo dhaaf waxba biil dambe inaanu siinin ayuu ka dhaartay. Ilaahay baa qur'aan soo dejiyay innaga wax laynagu barayo. qur'aanku wuxuu leeyahay walaa ya'tali ulul fadli minkum wasaca an yu'tuu ulil qurba. Ilaahay wuxuu leeyahay yay ka dhaaranin kuwii dheeraadka la siiyey iyo balballaarinta nolosha Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku siiyey yay ka dhaaranin inay wax siiyaan qaraabada iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta Ilaahay dartii u soo hijrooday. kadib baa Ilaahay amar bixinaya wuxuu amar ku siinaya Abubakar iyo wixii ka dambeeya muslimada waliyacfu waliyasfaxu baa Ilaahay yidhi ha caafiyaan oo ha ka jeestaan arrintaasoo waxba yay ka soo qaadeen. oo waayo Ilaahay wuxuu leeyahy alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. idinku miyaydan jeclayn in Ilaahay dembigiina dhaafo? innagu maalin walba waa dembaabnaa isagoo Ilaahay ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo waxaasoo nimco ku siiyey. wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuha aanad tirin karin ayaad haddana nicmadii uu ku siiyey halkaad shukrinaqiisa iyo cibaadadiisa ugu adeegsan lahayd ayaad macsi ku gashaa. haddana hadhow baad gacmaha taagtaa tidhaahdaa yaa rab ilaahu dembigayga cafi. idan Ilaahay wuxuu leeyahy alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum. idinku maydan jeclayn in Ilaahay idiin dhaafo? adiga marka in yar lagaa galana cafiyi maayo waan argoosanaya. adigu markaad Ilaahay dembiga ka gashana ilaahu cafi dalaba isqabta maaha baa Ilaahay leeyahy. Abibakar Ilaahay markaa wuxuu leeyahay cafi. Abibakar waa cafiyey biilkiisiina waa siiyey. qisadatan markaa waa qoyskan barakadoodii iyo khayrkoodii bay ka mid tahay qoyskan reer Abibakar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu wuxuu inagu baray wax kasta oo la sheego xataa cirdigaaga iyo sharaftidaada iyo xaaskaaga iyo reerkaaga iyo kan haddii meel lagaga dhaco oo ceebaha intaa leeg lagu geysto ay been tahay oo cidda kuu geysatay ay ka mid noqoto midaad adigu biilinaysay oo wax siinaysay oo qaraabiya tol kula ahaa haddana Ilaahay wuxuu ku faraya inaad iska cafido isagoo qaraabo iyo tolba kula ahayo aad biilinayso qof kaa fog oo shisheeye oo coltihiin hadduu ku maagmaago waxaad odhanaysaa waa wax iska caadiya laakiin qofka kugu xiga hadduu ku maagmaago ee aad adigu abaalka ku leedahay ma qaadanaysid dee waayo abaalka waxaad sugaysay inuu ku abaal guday inuu cay kuula yimaado iyo xumo kamaad sugaynin. Ilaahay kaas buu wuxuu leeyahay cafiyo. idan ayuha alikhwa nusuustaasi waxay ina baraysaa noloshoo dhan in cafisku wax lagu maamulo uu ka mid yahay. aan nimaadno qoysku waa unuga bulshada ee ugu yar. alusra bulshadu waa usar isu tegay. qoysku waa unuga ugu yar. qoysku waa dadka isugu dhexgalka badan lee wada jooga. ninka iyo gabadhu waxaanay dadka kale kala aqoonin bay kala yaqaaneen. ninkuna xaaskiisa dabeecadaheeda iyo nolosheeda iyo waxay gashay waxay guddoon dhan wuu yaqaanaa. gabadhuna sidaasi leeg
marka hore la isguursanayo qof waliba labeentiyo ammaantiyo inta mudan buu sheegtaa ila nin ceebtiisa ma sheega gabadhina ceebteeda ma sheegtee markase guriga la isugu yimaado ayaa qof walba xaqiiqadiisa la gaadhaa qof waliba wuxuu yahay uu muuqdaa caruur baa timaada gurigu mushkilaad badan buu yeeshaa waa meel aad maalin kasta dhibaatadiisu iyo mushkiladiisu ay iman karto ilaahay see ula dhaqma baa leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay dadkii guriga madaxda looga dhigay ragga ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watagfiruu faina allaha gafuuru raxiim ilahay wuxuu leeyahy subxaanah watacaala raggii alle iyo rasuulkiisa rumeeyayow dumarkii caruurta qaar cadowdiina baa ku jira ma eryaa la yidhi markaa dee islaanta dhibi ka timaado ama caruurta dhibi ka timaado may dhaafaba ilahay wuxuu leeyahy faxdaruu digtoonaada mushkilaadkaad inaad xaliili karto isku day wain tacfuu watasfaxuu watagfiruu baa ilahay leeyahy saddex eray oo saddexduba macnayaal isku dhodhow sheegaya oo saddexda midba ka kale xoojinaya ilaahay isticmaalay wain tacfuu haddaad tirtirtaan haddaad dhaaftaan watasfaxuu ka jeesataan watagfiruu intaaba haddaa yeeshaan baa ilaahay leeyahy faina allaha gafuuru raxiim baa lagu yihi markaa ilaahay isaguna waa mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan macnaheedu waxa weeyaan sidan adiguna haddaad yeesho dumarkii iyo caruurta u naxariisato dembigooda dhaafto muqaabiluha waxaad helaysaa in adigana waxaad qasaysa ilaahay kaa dhaaf in adiguna markaad yaa rabbi tidhaahdo ilaahay aqbalo idan guriga dadka badh noloshan dambe dadka badh baa waxay moodaan tit for tit wax waliba in qaanuunka lagu xalili karo maya shareecada islaamiga inta qaanuun lagu xalilo waxaa ka badan inta akhlaaqiyaadka lagu xalilo walidalik baabkan markaan ka waramayo intaanan qaanuunka gaadhin baab ataxkiimi walqadaa intaanan gaadhin waxaa ka horeeya abwaabil akhlaaqiya dhaqan in lagu xalilo mushkilaadka bini aadamka dhex yaala saa daraaddeed baa ilahay wuxuu inoo tilmaamaya qoyska inaynu dhaqanka ku dhaqanno reeruhu goormay isugu adag yihiin qoysku goormay isugu adag yihiin waa marka la isfurayo socanka maaha ilahay wuxuu ka waramayaa subxaanah wa tacaala marka xataa la ysfurayo see loo dhaqmaa rabbi wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu ma faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat الnikaax waan tacfuu aqrabu litaqwa baa ilahay rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu yihi haddaad dumarka furtaan inta aydan is arag ama aydan hoy wada seexanin haydan istaabanba iyadoo aa u samayseen meher a u magacowdeen sadaaq yacni adduunka laysku mehersado iyadoo la magacaabay xaalku muxuu noqonayaa yacni nin iyo gabadh baa isguursaday weli may aqal gelin innaga dee caadadeenna in la magacaaboba weeyaane waktigaasna meherkii waa la sheegay gabadhu intaasay meher u leedayna wadaadkii meherinayaa sheegay waxaa timi inaa isfurtaan haddana idinkoo aan is arag waxay noqotay in la kala noqdo ilahi wuxuu leey hadday taasi dhacdo oo aad dib u kala tegaysaan shareecadii waxay sheegaysaa gabadhu meherkaa nuskeed bay leedahay haddii 4,000 lagu meheriyey 2,000 bay leedahay kaasi waa qaanuunka marka la eegayo amaa dhaqanka iyo akhlaaqda ilaahay wuxuu leeyahay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax labada dhan mid uun wuu cafiyi karaa gabadhuna way odhan kartaa war waxbaha nusnusaynay nuskana waan kaa cafiya iska tag hadda waa la ysfurayaa laakiin waxaa la tilmaamayaa inay gabadhu waxani waa xaqeedana way ka tanaasuli kartaa hadday iyadu rabto haddaan la qasbin hadday tidhahdo war nuskana qaado iska tag xaq bay u leedahay ninka laftiisu hadduu yidhaahdo naa waxbaha nusnusaynin iska wada qaado meherkaaga isna xaq buu leeyahay waa wada siin karaa ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaa wax cafidaan ayaa alla kacabsiga u dhow baa laynoo tilmaamaya xataa xaaladda ugu adag ee ah in qoysku kala tago oo reerku kala baxo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay cafiska ha ilaamina
noloshun baa labadiina u suurtogeli weydaye qof waliba bulshada cid kale ay uga suurtagala ha doono laakiin hayse xagxaganina baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka noloshoo dhan baa cafwi hadday mid siyaasiyati hadday siyaasad daakhiliyati hadday siyaasa khaarijiyatay hadday xuruubtay hadday isku day diltay hadday sumayn tahay hadday madaxweyne la isku dayo in la dil waxoo dhan cafisku waa ariiq ka mida ariiqa muranka lagu joojiyo xadiidka abu daawud iyo tirmidiba warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo aroorinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo isagoo nabigu jooga baa nin u yimi markaasu wuxuu uhi yaa rasuul allahi kam nacfu cani alkhaadim ilaahay rasuulkiisiiyow khaadimka shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nabigu wuu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam ninkiiba hadalka ku celiyey haddana ilaahay rasuulkiisiiyo imise goor baanu khaadimka shaqaalaha imise goor baanu cafinaa markaasuu nebigu haddana aamusay mar saddexaad buu ku celiye uu leeyahy shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu ku yidhi cufuu canhu fi kulli yowmin 70 mara buu nebigu yihi maalin kasta 70 jeer cafi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii shaqaala ahaa ama shirkad ha kaaga shaqaynayo mudiiro ahaw ama guri ha ka shaqaynayo ama wuxuu doonay waa qof shaqaalaha shaqaalaha imisaanu cafinaa markay ku celceliyeen nebigu wuxuu ku yidhi 70 jeer cafi ayuha alikhwa facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrih facfu canhum wasfax in allaha yuxibu almuxsiniin waa gaala baa ilaahay leeyahy sidaa kula dhaqan nolosha haddaynu rabno markaa inaynu isbeddel ka samayno lama yidhaahdo maxaa loo gafay gafku waa min طabci اlbashar ayuu ka mid yihi khaطأuna wuu dhacaa gaf badheerhina wuu dhacaa laakiin waxaa muhimkahay waxa weeyaan inaynu barano qaabka wax loo xalilo inagu soomaali haddaynu nahay siiba dhaqanka soomaaliyeed aargoosigu waa wax ku weyn dulqaadkuna waa wax ku yar waxaa layna barayaa markaa dariiqa koowaad ee qaabka loola dhaqmaa inuu yahay cafwi cafwiga waxaa ka ratibma inaad dadka walaalowdaan waxaa ka ratibma in colaadu baabado quluubtu isu furanto waayo qofka aad yad ku lahaydee intuu dhib kuu geystay haddana aad cafidaa berrita agtiisa lagugu xaman maayo in lagugu dhibo daaya waxaa ka ratibma caafimaad xataa innaga shareeca inoo sheegtay gaaladuse can ariiqi tajriba waxay ku ogaadeen cafisku forgiveness inuu noloshaba fudaydiyo walidalik ayaa maalan ingiriiska jaamacaddan leeds la yidhaahdo ustaad cilmi nafs kursiga psychologyga ninka u fadhiya kinhart baa la yidhaahdaa kinhart ayaa wuxuu iclaaminayaa ingiriiska dadka ingiriis u iclaaminayaa dowra inuu bixin doono ku saabsiisan qaabka cadhada loo qarsado ee dadka loo cafiyo sababtuna waxay tahay buu leeyahay dadka caafimaadkiisa iyo nabaddiisa ku jira kinhart wuxuu leeyahay waxyaabaha xanuunada ugu badan ee hadda inugu dhaca oo uu leeyahay xanuunada wadnaha iyo dhiigkarka iyo kuwaasi dawooyinka ugu fiicana la siiye lagaga hortago waxaa ka mida buu leeyahay cafiska saa daraaddeed buu wuxuu iclaaminayaa jaamacaddiisa qeybtiisa uu joogo psychologyga inuu bixin doonto koorsooyin tadriiba bulshada loo faafinayo oo 70 qof la qaadanayo ay yidhahdaan maalmo yar bay ku buuxsantay kinhart iyo kooxaha kan cilmi nafsiga ka shaqeeya waxay leeyihiin khalaaya dimaaq baa qofka u nasta bay leeyihiin hadduu aargoosiga iyo cadhada iyo waxaan ay ka baxaan oo dadka iska cafiyo isaga caafimaad qaada bay leeyihiin qofka kani marka wuxuu ku doodayaa uu leeyahay psychologically isagay ugu jirtaa inuu si nolol fiican oo aan stress iyo cadho iyo dhib lahayn inuu noolaada caafimaadkiisa ka mid tahay buu leeyahay iyagu markaa can ariiqi daraasatihim wa tajribatihim bay waxay ka barteen forgivenessku inuu nolosha waxtar u yahay
ay isku dayayaan hadda inay bulshadooda waxay ku faafiyaan ay noqoto. laakiin anigu uma baahni inaan leaders iyo kursigeeda psychology-ga adeegsaday. waxaan u baahnahay 44 aayadood in ka badan oo qur-aan ilaahay ku sheegay, waan mid iyo 2 iyo 3 iyo 4 ahayn, 40 aayadood in ka badan. 44 aayadood baa ka warramaya marka la yidhaahdo. waxaan leenahay waa awalu ariiq bulsho cidda hoggaanka u haysaana ay ku hoggaamin karto, bulshaduna ay ku wada noolaan karto. bulshada isu uraysa ee ishayse iswada colaadinaysa waa bulsho cafina, ma noqon karto bulsho dhisantoo jirta. idan ayuha alikhwa fi lleyla aluula waxaan idin leeyahay awal ariiq muranka iyo dilka iyo dagaalka lagu xallilo waa ariiqa in la iscafiyo uu qofku kan qaato. wailaa ariiqa labadan habeen dama ka warramo. sala allahu cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.